على حاصل تلمانت إلى تبليغ قارسين أنبياء إسكاله قال أمانت اللب حذي ويان أرده أنه تبليغ بابنا لير هذا تبليغ مركها اللب حيانه محيكو قارسين ينمتقان كتاب كأذا خرسانة يسو كصوتك بيكوليهن وهذا التبليغ دينتا لقيتك دهية أنبياء دي مقع عوديد ودتين مقع أنبياء إن للبحة مركو رقالة دهيد بأذنكم مريدين مقعان إذن من واتبين تلمانتانو أمدا أما أخريان دوسية قرآن أمدقان إلا يددك قرآن كالبراه ورنبي أن قرآن كريم كابل لقسو قوري أيقو ددك قرآن كمبران ما أخريان تفاسيرت وإنت ددك النقضان عالمين تبليغ عالمو كتاب فسيرية والتفسير لوغو صعدو ولقى عند ساري ميسيت ولقى بهسوق انتاس محدثين معها وددك انت أحاديث تبران تبليغ أحاديث أمد برية ولقى عند ساري ميسيت فقهاء معها وددك علمك فقهك تبليغ برية أركي ميسيت لغويين معها وتبليغ لقبران ايو صرفك ايو بلاغة ايو منطقة ايو كل قوت وحا ايقا مبرنبا قفك امدا وحو بري كرا وحو اصاقو برطو ايقا مبدأ دا وحو كل سنياهي إلا الصعوده oo nin walba boorsada dhabarka saarto oo la wareego oo magaalada mar la tago kuma dhisna in cilmi la barto kuma dhisna in quraan la barto kuma dhisna in fiqh la barto dadka in la barana kuma dhisna shuqulkoodba maahanba hawshooda maahanba ninkii ugu horeeyay oo tabliiq bilaabay Muhammad ibn Ilyas al-Hindi baa la yiraahdaa wadanka Hindi buu ka soo baxay habeen madow buu jiiftay oo soo kacay markaas inta ummadda iskugu yeero wuxuu yiri aniga waxa la tusiyay barnaamijka noocan inaan ku shaqeyno oon jawla sameeyno oon wareeg sameeyno oo dadka aan wareegno wareega diinta lagu gaarsi karo laga bilaabo maalinkaas socodkii bilowday ilaa hadda boorsooyinkii waa on la wataa weeyaan lama dhigin maalinkaas sidii loo bilaabay boorsooyinkii baa la wataa mabda'a tabliiq oo dhan nin qarway buu ka bilowday qarowgaas ka soo bilowday weeyaan Muhammad bin Ilyas ayuu ka soo bilowday wuu qarway qof alla qofkay soo wadaan oo ay maalinka dambe wadaana wahaabiyada ka sii qaadata waxay dhaan waxba idin barmaya ka soo tag markay dadkii ayaan ay hayaano salaada ay cabaar ku hanuuniyaan xogay qofkii oo soo roonaado jaadki iska dhaafo subax dambe soo wahaabiyo ka hor imaanaya maxay la kuwaas mabda mayal adag oo ayagu ay aaminsan yihiin xogay diin ay ku aqna dhahayaan ay qofkii u sii wadanayaan taariikhda waxa ku qoran oo kutubaha islaamka ku qoran muftigii joogay Sacuudiga la yiraahdo Ibn Bas oo dhintay hadda muftigii Sacuudiga waxa la weydiiyay tabliiq ka waran baa la yiri tabliiq maxaan ku sameeynaa baa la yiri sideen yeelna tabliiqa Ibn Bas oo bal nooga sheekay markaas wuxuu yiri tabliiqa baarid baan ku sameeynayo waxaan ogaanay in uu kamid yahay jamaacada noo shaqeynaysa inuu yahay baan ogaanay buu yiri yana la ka taaban anagoo noo shaqeynaya tabliiq waabiyadu waa og yihiin tabliiqa inuu ayaga u shaqeeyo ilaa yawmina hada kulamada ay qabanayaan bidcadu ama London ha ku qabteen ama meel kale ha ku qabteen tabliiqa kuwa ugu sarsareeya waa laga marti qaadaa islaaxa waa laga marti qaadaa wahaabiyada waa laga marti qaadaa magaca inaan idin sheego waxba uga baahni laakiin waxaad ogtihiin isku hal meel bay mu'tamaraadka ku qabtaan kulli ujeedooyinkooda oo dhan waa dad isku hal dallad ah oo annaga magacyada noo kala bedelanaya oo qola la bixin islaax qola la bixin tabliiq qola salaful jadiid la bixin qola la bixin i'tisaam kuwii hadda macnaha maalmaha hadlayay kulligood waxaan ognahay halka meel ay ka soo wada qalin daarteen meesha ay ka yimideen meesha laga waraabiyo meesha ay mabaadi'dooda ku salaysan tahay kulli wayda naqaan marka isku gambamayne tabliiqo meelaha ka qaraabta dadka cilmiga baranaya oo sunniga ah dhexdooda ha soo gelina ilaa adinku waa leedii yaqaan wixiina dhan ru'yay ku dhisan tahay qarowbay ku dhisan tahay maaha diin maaha darsi maaha quraan barid hooyada waayeelka ah meesha ku dhacday waa loo imaanaya wiilka ay dhashay waxa la oranayaa inaad baxdo oo dhowr maalin tabliiq u baxdo ayaa ka ajir badan hooyada oo meesha tal inaad la joogto waxa kaaga ajir badan inaad tabliiq raacdo wala wadayaa weeyaan muadinka masjidka jooga waa laga wadayaa mudarriska kitaabka akhrinaya oo dadka diinta baraya 24 saac inta loo yimaado ba waxa la oranayaa sheekhow khuruuj fi sabiilillah ma raaci kartaa khuruuj fi sabiilillah ma yaqaaniinba maxaa yeelay khuruuj fi sabiilillah waxa la yiraahdaa
qof walba oo waddada ilaahay ku socda oo khayrka u socda macallimka qur'aanka dhiga waa alkhuruuj fii sabiilillah sheekha dadka diinta baraya alkhuruuj fii sabiilillah qofka jihaadka gaalada xarbiyiinta la dagaalamaya alkhuruuj fii sabiilillah maba yaqaanin tabliiqu khuruuj fii sabiilillah maba yaqaaniinba adigoo ku socda khayrkii bay kaa wadayaan waxay u maleeyaan khayrka adigu aad waddo inuusan khayr ahayn laakiin midka ayagu wadaani inuu khayr yahay marka yaa laydinku khaldin tabliiqu mabda' saxan maaha islaaxu mabda' saxan maaha ictisaamku mabda' saxan maahan salafiyadu mabda' saxan maaha wahaabiyadu mabda' saxan maaha khawaarijta oo dhan kulligood waa bidcooyinkii raadadkoodii bay u wada laabanayaan khawaarijta ahaa laakiin halka mabda' ama waddada saxda ah iyo caqiidada rasmiga ah oo diinta noogu cadi waa dariiqa saxda ah oo noo qoran oo la yidhaahdo ahlu sunnati waljamaaca kaas baan ilaahay weydiisanaynaa inaan rabbi laho tagno qiyaamada oon meel kale ilahay nooga leexinin weeyaan meel walbo adduunka aan joogno ilaahay nama bedelo dariiqa saxda ilaahay nagama bedelo weeyaan annagoo waddo saxan heli karna oo kitaabkeenni gacanta ku haysanna nin habeen madow qarwey yaa laydinku khaldin waa wax aan meel haysanin weeyaan maalinba meel baa loo ordayaa maalinba meel subaxba meel oon baa loo socdaa weeyaan annagu waxaasoo dhan kuma jirno hal meel oon baan taagannahay ilaa aan ka dhimannana taas baan ilaahay weydiisanayna subxaanahu wa tacaala waa waddadii aan iyadu firqo ahayn oo maalinba aan koox cusub ahayn ee diinta islaamka ku sugneed iyo kitaabaha qoran oo islaamka ku soco jiray oo nabi moxamed gelaysay calayhi salaatu wasalaam waa dariiqa ahlusunnati waljamaaca ahlusunna waljamaaca markaad maqasho ujeeddadu ma ahan qof siyaasad ku jira ama mabaadi' gooniya ka shaqaynaya laga hadlin maayo shabaab ba hadday rabaan waxay odhanayaan annagaaba ahlu sunno ah tabliiqu waxay odhanayaan annaga ahlu sunno ah laakiin intaasoo dhan ahlu sunna way iska beriyeeshay caqiidada islaamku way iska beriyeeshay kitaabkan aan akrinayno waa caqiidadii ahlu sunna caqiidadii tabliiqa ma aha tii khawaarijta ma aha tii muctasilada ma aha tii jahmiyada ma aha tii mujasimada ma aha tii shiicada ma aha tii akhwaan muslimiinka ma aha tii yahuudda ma aha waa tii sunnada nebi moxamed ku socota weeyaan calayhi salaatu wasalaam waa sunnadii rasuulka waa sunnadii asxaabta waa dariiqii mujtahidiinta waa dariiqii salafu saalixa caqiidada lagu sheegayo oo lagu odhanayo ahlusunna waa dariiqaa saxdaa weeyaan oo kutubta ku qoran baa looga jeedaa inta kaleetana ahlulahwaa waalbidac baa la yidhaahdaa